maanta halkaan u taaganay inaan dalkeena quruxsano waxa ka mid ah dhalinyarada Nasr Foundation oo ka hawlan magaalada inay qurxiyaan si ay u dabaaldegaan maalmaha soo socda maalmaha xorriyadda 26 Juun ee koow Luulyo oo 26 Juun oo maalmaha 26 Juun soo dhow inaan dhulkeena quruxsano waxaana tiim isla qaamay oo dhalinyaro kuwaas oo isku xilqaamay inay deegaanka qurxiyaan oo ay maaragtay maalmaha xorriyadda ay u diyaar garoobaan waxa ka koobanahay 13 ruux oo aniga 14 ku ah gudoomiye ah anaga isxilqaanay anagana jecel inaan magaalada qurxino insha Allah waxaan rajaynaynaa inay maalmaha xorriyadda si fiican nooga soo dhamaadaan waxaan bilaabnay 13kii bishan aan ku jirno maantana waa 22 waxaan dhiman waa maalmo yar insha Allah waxa Ilaahay ka baryaynaa inuu si nabad ah noogu dhameeyo shaqada wax gaar ma u sii malaha anaga isxilqaanay lacag iska aruurinay aan ku bilawnay hadda markii rinjiga nooga go'o kaleento asxaabta iyo dadka kaleento aan naqaanayaan weydinaa bas rinjiga nooga si aan waxa uu qabano ku dhameystirno dadka qaar way noo sameeyaan dadka qaarna waxay dhahaan idinka lacag soo qaatay marka anaga waxaan dhalinyaro isxilqaantay dhalinyarada badan ama shaqeeyaan oo dhalinyaro shaqeysan maahan wadanka maadaama uu shaqo laan ka jirto anaga ayaa isxilqaanay qof walbana waxa awoodo ayuu keenayaa saas ayaan hadda ku bilawnay waana ku soconaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku dhameystirno maya wax mas'uul ah oo dawladda ka socda oo nala hadlay ma jiro ama dawladda hoose ha noqoto ama dawladaha dhan waxay wasaaradda ay wax kasta noqdaan weli qof nala hadlay ma jiro maya ma la hadlin anana ma aan weydiisan wax sababtoo ah magaalada waxay u baahan tahay oo loo jeedaa waan ogyihiin dadka inay maalmo xorriyadda nagu soo food leeyihiin qof walba waxa wanaagsan inuu isxilqaamo inta anaga dad wax uma weydiinin laakiin u jeeda indhahooda macallin ah qofkii rabo inuu wax qabto ama wax caawiyo una imaana marka insha Allah saas aan rajaynaynaa inay noo imaado